isbeddelkii ku dhacay dhulkii barakaysnaa ee Falastiin 1896 bilowgii geedigii Yuhuudda Yurub ay u soo guurayeen dhulka Falastiin kadib bilowgii 1900 ka hor dagaalkii koobaad ee adduunka. Falastiin waxay hoos joogtay xukunkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyadoo ahayd dul Muslim, xoogaa Yuhuud iyo Kiristaan ahna ay marti ku ahaayeen. Kadib dagaalkii koobaad ee adduunka, boqortooyadii Cusmaaniyiintu meesha waa ka baxday, dhulkii barakaysnaana waxa uu gacanta u galay gumaystihii Ingiriiska 31 Oktoobar 1917. Ingiriiska oo 28 sano joogay Falastiin ayaa xoojiyay geedigii Yuhuudda Yurub isaga oo soo saaray bayaankiisii caanka ahaa ee bayaankii Balfour. Yuhuudda oo ka ahayd dhulkaasi 6% dhulka Falastiin ayaa ka noqotay 33% oo noqonaysa in gaalkii Ingiriisku soo dejiyay dhulkii Falastiin 376,415 Yuhuuda intii u dhaxaysay 1920 ilaa 1945. dagaalkii labaad ee dunida kadib, dhulkii Falastiin oo Yuhuud badan lagu beeray ayay qaramada midoobay oo 2 sano kaliya jirta waagaasi soo jeedisay qorshe ahaa in dhulka reer Falastiin 55% ay qaataan Yuhuudda doomaha lagu keenay, halka reer Falastiinna laga siinayo dhulkoodii 45% iyadoo Qudusna la hoosgeynayo maamulka qaramada midoobay. 1948 oo Ingiriis isaga baxay dhulka reer Falastiin, waxaa qarxay iska horimaadyo daran oo u dhaxeeyay dadkii dhulka lahaa iyo kuwii la soo dejiyay, halka ciidamadii Israa'iiliyiintu ay barakiciyeen in ka badan 750,000 oo Falastiiniyiin ah. Waa dhacdadii loo yaqaanay An-Nakba. Sidoo kalena ay qabsadeen 78% dhulkii reer Falastiin, halka intii soo hartay oo ah 22% loo kala qaybiyay Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza. 1967 waa dagaalkii 6 maalmood Yuhuudda ayaa qabsatay dhammaan dhulkii reer Falastiin, iyagoo sidoo kalena qabsaday buuraha Golan Heights iyo gobolka Sinai ee Masar. 1978 ayay Masar iyo Yuhuuddu kala saxiixdeen heshiis masaarida dib u siiyay gobolkii Sinai. Oslo 1993 ayay Yuhuudda iyo Falastiiniyiintu ku kala saxiixdeen heshiis u ogolaanaya Falastiiniyiinta inay yeeshaan maamul gaar ah. Kadib xadgudubyo, barakicin, xarig, dil, dabid, dadkii reer Falastiin waxay noqdeen kuwa musiibooyinka wehel u yihiin. dhulkii barakaysnaana waxa uu noqday mid dhiiga walaalaha Falastiin uu bedelay kalarkiisa.